habeen wanaagsan daawade halkan waa janaalka xulashada wararka waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka waana habeenimo cadaysi bixistin ayaa soo galaysa taariikhda ay ku aasaysan tahay 16 May 2021 qodobada xiisaha badan daawo doontaan waxa ka qayb noqonaya taliska ciidanka asluubta Soomaaliyeed oo qoray in rag wata jaakada qaraxya ay soo galeen magaalada Muqdisho waxay sidoo kale ka hadleen howlgallada amni ee raggaasi halka ay ka yimaadeen iyo tiradooda iyo warar kale saddex mar ee magaalada Muqdisho ka jira ee qaraxyadaasi ku saabsan ayaa daawo doontaan midowga musharaxiinta qoraal ka soo baxay waxa ay shaaciyeen in ra'iisul wasaare Roble uu dhexdhexaad ahayn waxay sidoo kale ka digeen safarada uu ka baxayo isla markaana uu ku aadayo dalka dibadiisa iyadoo oo Djibouti iyo Sacuudiga uu gaaray ra'iisul wasaare Roble wafdi ka socdana maamul goboleedyada dalka magaalada Muqdisho ayay yimaadeen waxaana bilaabatay qabanqaabada shirka 20 May kaas oo madaxda maamul goboleedyada iyo federaalka isku hor fadhiisanayaan ciidamo gadoosan waxa ay goosteen jidadka gala magaalada Jowhar ee caasimada dowlad goboleedka Hirshabelle waxaana yihiin ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo dhawaan dowladdu halkaasi ay geysay tababarna wararkii ugu dambeeyay magaalada Gaza adoqoynta Israa'iil ee maanta halkaasi ka fulisay yaa daawo doontaan in qasaaraha ka dhashay haddii tahay markii ku horeyso channelka soo booqato fadlan subscribe noo saar muuqaalka la gray gambaleelkana furo mahadsanid ayaan ku raacineynaa aan ku bilaabe magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya walwal amni oo xoogan ayaa ka bilowday durba kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in rag wata jaakada qaraxya ee magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya soo galeen General Mahad Cabdiraxmaan Aadan taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed oo la hadlayay ciidamada asluuba oo dardaaran loo jeedinay isla markaana sugidda amniga qaybka waxa uu sheegay in shacabka Soomaaliyeed looga baahan yahay in ay ka feejignaadaan rag qaraxyo jaakadaha wata kuwaasi oo magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya soo galay waxa uu sheegay in raggan tiradoodu ay badan tahay isla markaana lagu raad joogo balse warar madax banaan oo xulashada wararka helaysa ayaa tibaaxay in raggan oo sideeda ay ka soo galeen gobolka Shabeellaha Hoose magaalada Muqdisho ee koonfurta Soomaaliya dhowr jeer sidaan oo kale xerada xalane hay'adaha jooga ee amniga ku shaqada leh waxa ay soo saareen digniino ka dhan ah ragga jaakadaha qaraxyada wata ee magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya soo galaya laba qarax oo waaweyn jugtooda laga maqlay inta badan degmooyinka magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya ayay jaakadaha qaraxyada rag wata ka fuliyeen degmooyinka Shangaani iyo Waabari waxaana qasaare kala duwan ka soo gaaray qaraxyadaasi saraakiil ka tirsan booliiska Soomaaliya oo qaarkood u geeriyooday halka qaarkood ay dhaawacmeen dhalinyaro mustaqbal ku lahaa dalkan Soomaaliya kuwaasi oo ka qayb ah iftiinka soo baxaya ee dowladnimada Soomaaliya digniintan ayaa noqonaysa mid qalqal amni abuurta balse General Mahad waxa uu sheegay in ciidamada amniga qaybahooda kala duwan ay qaraxyadaasi ka hortagi doonaan sida ugu dhaqsiyaha badan shacabka walwalka ay dareemayaan looga dulqaadi doono dhanka kale golaha midowga musharaxiinta Soomaaliya ayaa walaac ka muujiyay jawaabaha aan iswaafaqsanayn ee dowladda federaalka ku aadan ismariwaaga hanaanka doorashada waxayna ku eedeeyeen ra'iisul wasaare Roble inuu ka leexday dhexdhexaadnimada marka hore dowladdu waxay codsatay in midowga Afrika uu soo farageliyo qalalaasaha iyadoo ku doodaysa in xal Afrikaan loo helo dhibaatooyinka Afrika ayadoo ujeedadu yahay in laga weecdo shaqada wakiilada beesha caalamka ee xarana ayaa lagu yiri qoraalka ay soo saareen golaha kadib magacaabistii wakiilka sare midowga Afrika si uu mas'uul uga noqdo hanaanka dowladdu waxa ay ka laabatay codsigeedii hore iyadoo sheegaysa in Roble uu bisha May 20keeda qabanayo kulan lagu sheegay in lagu xalinayo arrimaha taagan golaha ayaa sheegay inuu aad uga walaacsan yahay in Roble uu ka leexday dhexdhexaadnimadii golahu waxa uu aad uga walaacsan yahay ra'iisul wasaaraha uu muuqdo in uu hoggaansamay cadaadis dibadda ah kaas oo ku hogaamiyay inuu ka leexdo mowqifka dhexdhexaadnimada ayaa lagu yiri warka ka soo baxay golaha midowga musharaxiinta oo markan waji cusub u yeelaya siyaasadda Soomaaliya oo maalmihii ugu dambeysay degnid balse xilligan isu dhawaanshaha kadib noqon doonta mid cidka isku sii shareeta maadaama fariimo kala duwan iyo faragelino kala digdisan ay Soomaaliya la kulmayso golaha midowga musharaxiinta waxa uu ra'iisul wasaare Roble ku boorinayay inuu muujiyo dhexdhexaadnimo isla markaana joojiyo safarada dibadda ee laga maarmaarka ahayn ahna waqti lumis degdegna ugu laabto shaqada ku wajahan hanaanka doorashada oo daahfuran ay isku raaceen
waxaana ay sheegeen taas wada aqbal ka yihiin shacabka Soomaaliyeed. Eedeynta golaha midowga musharaxiinta waxay ilmaanaysaa iyadoo bilowgii hore bal rumaysnaa in Rooble uusan lahayn karti iyo go'aano uu ku madax banaanaan karo farmaajaha madaxweynaha dhamaaday, waxaana tani ay abuuri kartaa xiisad cusub haddii dhinacyada madaxtooyada Soomaaliya faragelinada iyo eedeymaha kala duwan ee la kulmayaan aysan ka joojin ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble. dhanka kale waxaa magaalada Muqdisho ka bilowday qabanqaabada shirka madaxda maamul goboleedyada xukuumadda federaalka iyo gobolka Banaadir oo la filayo inuu ka furmo 20 May magaalada tani. shirkan waxaa ku baaqday xukuumadda Soomaaliya uu hogaamiyo Maxamed Xuseen Rooble si arrimaha doorashooyinka amniga uu wareejiyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay u gudgalaan. ra'iisul wasaaraha xafiiskiisa xubno ka tirsan ayaa shaaciyay inay socoto diyaar garowga shirka 20 May oo qabanqaabadiisa xilligan ay ka socoto Muqdisho. Guddiga qabanqaabada shirka dowlad goboleedyada ayaa Muqdisho soo gaaray waxaana kulan ay la yeesheen qabanqaabiyaasha xafiiska ra'iisul wasaaraha ayuu yiri afhayeenka xukuumadda Maxamed Ibraahim Macalimo. madaxda maamul goboleedyada waxay aqbaleen shirka uu ku baaqay Rooble iyadoo hadda la diyaarinayo ajendaha shirka iyo arrimaha ku xeeran shir guddoonsiinta iyo qodobada shirka looga hadlay maadaama dhinacyadu si aad ah markaan isugu sii dhawaanayaan oo Axmed Madoobe iyo Saciid Dani waxay wararku sheegayaan inay u tanaasuleen go'aano badan kaga leexdeen ra'iisul wasaare Rooble dartiis waa haddii madaxweyne Farmaajo go'aanadiisa uu yahay mid ka madax banaan isla markaana daacad ay ka tahay hogaaminta howlaha doorashooyinka iyo amniga ee gacanta loo geliyay. markaan Hirshabelle ayaan aadaynaa ciidamo ka tirsan kuwa sida gaarka u tababaran ee Haram Cad loo yaqaan kuna sugan magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabelle ayaa sameeyay gadood. ciidamadan oo dalbanaya in dib loogu celiyo magaalada Muqdisho ayaa gabi ahaan bixiray wadooyinka muhiimka ah ee ku yaala magaalada taas oo muhiim u ah isocodka dadka iyo gaadiidka iyadoo mararka qaarna ridaya rasaas goos ah. ciidamada ayaa markii hore laga soo qaaday magaalada Muqdisho markii ay dhicisay doorashada Hirshabelle ee madaxda dowladda taageersan ay ku soo baxeen waxana xilligan ay dalbanayaan in caasimadda dib loogu celiyo isla markaana eheladooda iyo xaasaskooda dib ay ugu laabtaan maadaama ay muddo ay ka maqayeen. ciidanka gadoodka sameeyay ayaa qalqal amni ka abuuray gudaha magaalada Jowhar kuwaasi oo saameeyay isku socodka ganacsiga iyo dadweynaha. qaar ka mid ah dadka deegaankana waxa ay sheegeen cabsi ay wajahday maadaama ciidamo kala duwan magaaladaasi ay ku sugan yihiin oo laga baqdin qabay in labada ciidan kuba gadoodsan iyo kuba kale ay isfara saaraan sidaasina qalqal amni magaalada Jowhar uu kaga bilaawdo. xaaladda amni ee Jowhar oo muddooyinkii ugu dambeysay aan fiicnayna ay noqoto mid faraha ka sii baxda. sidoo kale waxaa lagu soo waramayaa in ciidamada gadoodka sameeyay magaalada xeryahoodii dib loogu celiyay kadib markii ay la kulmeen saraakiil sare oo ciidanka ka socotay iyo kuwa maamulka Hirshabelle. laba ogeyn codsigooda la aqbali doono iyo dowladda federaalka Soomaaliya talaabooyinka ay qaadayso balse Farmaajo muddooyinkii ugu dambeeyay ciidamada uu ku tashanayay waxa soo wajahay arrimo ku saabsan in gadood ay sameeyaan banaanbaxyo cabashaha ay dhigaan iyaga oo abuuraya qalqalgelin amni isla markaana sheegaya in ay ka xuyeen amarka madaxda iyo goobaha la geenayo. markaan Gaza markaan eegnana ciidamada cirka Israa'iil ayaa magaalada Gaza maanta waxaa la sheegay duqeyn ay ka fuliyeen ee ku dhimatay 23 qof sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza. duqeynta maanta ayaa ahayd tii ugu dhimashada badneed tan iyo markii toddobaadkii hore dagaalka ka dhex qarxay Israa'iil iyo Xamaas. subaxnimadii hore xadda Israa'iil ayaa duqeysay guriga Yahya al-Sinwar oo ah hogaamiyaha ugu sareeya Xamaas ee Gaza waxaana uu dagaalka galay maalinkii toddobaad oo xiriir ah. si rasmi ah looma oga in Sinwar uu guriga ku sugnaayeen kale. wakaalada wararka ee Associated Press ayaa warisay in ay aad u badan tahay in isaga iyo madax kale kooxda ay ku dhuumanayeen. Heidi Amar oo ah ku-xigeenka kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ee arrimaha Israa'iil iyo Falastiin ayaa ku sugan Israa'iil waxaana lagu wadaa in hadda maanta uu la kulmo hogaamiyaasha Israa'iil kadibna uu daanta galbeed oo kula kulmo saraakiisha Falastiiniyiinta si loo helo xasilooni waarta ayay wasaaradda arrimaha dibadda ku sheegtay qoraal ka soo baxay. waxaana markaan u muuqataa in xiisadda la kala dhaxgalayo. gudaha wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka ee janaalka xulashada wararka daawade
waana idintaa inta ku kulmi doono war ceenkan oo kale inta nabadgelyo.